farsigan wuxuu ciise ku marti qaaday casho sharaf oo ciise ayaa gurigiisa tagay oo u fariistay cashadii ka soo baxa aroor yahay oo baxa ay maqasheen baxa aroortu mar walba waa sidaas iyagu waxba ma adeecaan maxay idwalka kaysa ma garanayo شقة قبل نيسا haddii uu ninkani nebi ahaan lahaa isagoo uu garan lahaa cidda naagtani ay tahay taabanaysa isagoo uu ogaan lahaa nolosha dembiga leh oo ay ku nooshahay waan garanayaa cidda ay tahay simonow balaan wax kuu sheego waxaa jira 2 nin oo lacag ka qabay nin lacag amaahiya ah mid waxa uu ka qabay 500 diinaar kan kalena 50 midkoodna wuu kari waayey inuu u cesho haddaba isagu u daayay labadaba keeba aad u jeclaanayaa isaga waxaan u malaynayaa midka inta badan loo cafiyey waad quman tahay waad aragtaa naagtan waxaan soo galay gurigaaga iimaad siinin biyaan cagayga ku maydho weliba iyadu intay cagahayga ku maydhay ilmadeeda ayay ku qallijisay timaheeda adigu igumaad marxabaynin dhunkasho laakiin iyadu intii aan ka imi kama ay joogsan inay cagahayga dhunkato adigu imaadan keenin saliid aan madaxayga marsado weliba iyadu waxay cagahayga ku saliidaysay cadar waxaan kuu sheegayaa jacaylkeeda weyn waxa uu muujinayaa in la cafiyey dembigeedii badnaa laakiin ku kasta oo wax yar loo cafiyey wuxuu muujiyaa jacayl yar dembiyadaadii waa laga cafiyey iimaankaaga ayaa ku badbaadiyey ee nabad ku tag ninka oo ciise wuu socdaalay isaga oo baraya warka wanaagsan ee boqortooyada ilaah oo waxaa isaga la socday 12 xorta ah iyo qaar habla ah oo laga daweeyey ruuxyo wasakha marintii la oran jiray magdalan yo'aana oo ninkeedu khusas dhaweeye ka ahaa guriga Herodos iyo Suusaana laakiin Herodoskii Romanka ee loo dartay Galili ayaa xabsiga ku dhex tuuray Yohana Baabtiisaha waayo waxa isagu ku dhalanceynayay guurka naagta walaalkii hagaag markii aynu gaadhay irdaweyn ayaa waxa la soo bixiyay maydkuna wuxuu ahaa wiil isla naxarmaliyad dhashay kolkuu ciise arkay iyada waxaa qalbigiisa ka buuxsamay naxariis isagu wuxuu taabtay naxashkii oo wuxuu ku yiri ninkaaga dhalinyarada ah istaag ma ku leeyahay maydka ayaa indhaha kala qaaday oo wuxuu dubisiiyay hooyadiis weydii isaga oo dheh adigu ma waxa tahay midku Yohana yiri uu iman doonaa mise qof kale ayaanu sugnaa
سيدو سيدو يوحنا بابتيسا يا نوكا صدري إنا تاي كان إيمانيا أما ما وحان فلنا متكلي نقو الشيخ يوحنا واحد أركتي واد مغشي إن دولو وحبو أركا عوريان كونوا وسعان كرا محي فرحسين كوا آنيغا شكيين والله سرعي قاد قرب كيكا حد ما عرفته ونركي كرا عيسى beerrey ayaa baxay si uu abuurkiisa u beerto oo intuu badarka firinayay qaar waxay ku daateen waddada oo waa lagu tuntay oo shimbiraha hawada ayaa kala boobay qaar waxay ku dhaceen dhul dhagxan leh oo markay soo biqleen ayay engegeen waayo qoyaan maysan haysan oo qaarna waxay ku dhaceen qodxo oo qodxihii ayay la koreen oo way mudeen oo qaarna waxay ku dhaceen ciid wanaagsan oo geedihiina way koreen oo midho dhaliyeen 100 habuuq midkiiba sayidow maxaad uga hadashaa masaalo markay dadku u dhow yihiin aqoonta sirta boqortooyada ilaah ayaa idinka laydin siiyey laakiin kuwo kale waxay ugu timaadaa hab mas'alo si ay u fiiriyaan balse aanay u arag oo u dhegaystaan balse aanay u garan waa midaan waxay ka dhigan tahay misaalku abuurka waa ereyga ilaah abuurka ku daatay jidka dhinaciisa micno ahaan waa kuwa maqlay ereyga laakiin shaydaan ayaa u yimi oo ka qaaday fariinta qalbiyadooda si uu uga hortago inay aaminin oo badbaadin abuurka ku dhacay dhulka dhagxaanta la micno ahaan waa kuwa maqlay fariinta oo si farxad loo aqbalay laakiin iyagu xididama leh waxay se aamineen muddo gaaban oo markii waqtigii imtixaankii la gaaray way wada dhaceen abuurkii ku dhacay dhulka qodxanta waa kuwa maqlay laakiin welwelidda hodantinimada iyo raaxada ayaa hareeyey oo ceejiyey oo midhahoodii maayaan bislaan oo midhaha ku dhacay ciidda wanaagsan waxay ka dhigan yihiin kuwa maqlay fariinta oo leh qalbi wanaagsan oo hanuunsan oo iyagu way adkaysteen ilaa ay midho ka dhaliyeen ninna intuu faynus sido kuma daboolo saxan ama ma hoos dhigo sariir balse waxa uu saaraa miiska si ay dadku u arkaan iftiinka marka ay soo gelayaan wax alla wixii la qariyo waxaa loo soo saaraa bannaanka oo wixii la daboolo waa la helaa oo iftiinkaa loo soo bixiyaa iska eega sida aad wax u dhegaysataan waayo ku kastaa oo waxhaystaa waa loo kordhin doonaa laakiin kan aan haysan waxaa laga qaadi doonaa inta yar ee u malaynaya inuu haysto macallin hooyada iyo walaalaha ayaa dibadda ku taagan oo waxay doonayeen inay ku arkaan hooyada iyo aabbahay waa kuwa maqla ereyga ilaah oo addeeca maalin ayaa ciise iyo xertiisii dooni dhex galeen oo wuxuu iyaga ku yidhi aynu gudubno dhanka kale ee harada oo intii ay sii socdeen ayuu isagu gam'ay
daadinayaa aaway iimaankiinnii oo iyagu waxay u sii socdaaleen ilaa gadareeni taasoo ku taallay dhanka kale ee harada ee dhanka galiili wiilka ilaaha ugu sarreeyo waxaad iga rabtaa waan ku baryayaay hayaa qaabili waa maxay magacaagu jinniyo rabbiyow waanu ku baryaynaaye naarta aan loo dirin aynu galno xaynta dufarada ah oo junniyihii way ka baxeen ninka soo laabta oo waxay dhex galeen doofaarrada ka tag meeshan kaagan sixiroolahow naga tag ka tag meeshan naga tag ka tag meeshan waan ku raacayaa meelaad tegtidba aan ku soo raaco adiga ku noqo guriga oo sheeg waxa ilaah adiga kuu sameeyey ciise iyo xertiisii ayaa ku noqday kulligood ilaa beersaciid laakiin shacbigii ayaa ogaaday tegiddoodii oo raacay galabtii gellinkeedii dambe ayaa butros yidhi sayidow fadlan dadkan iska dir si ay u aadaan tuulooyinka iyo beeraha halkan ah oo ay cunto iyo hooy uga helaan meeshani waa meel cidlo ah adiga qudhaadu si waxay cunaan laakiin waxaan haynaa 5 kibis iyo 2 kalluun waxaa barakadaysan adiga rabbiga ilaahayaga boqorka carshiga oo kibis inaga siiya innaga dhulka waa mucjiso
yay ugu sheegaan dadku qaar waxay leeyihiin waxaa tahay yooxana babtiisaha qaar kalena waxay leeyihiin waxaa tahay eliyas iyadoo qaar kalena ay leeyihiin mid ka mid ah nebiyaashii beri hore ayaa soo noolaaday idinku ayaad igu sheegtaan waxaa tahay masiixa ilaah cidna ha u sheegina tan wiilka aadanuhu waa inuu aad u silcaa oo la diidaa isaga waa la dili doonaa laakiin 3 beri kadib ayaa la sara kicin doonaa kadib ciise wuxuu kaxeeyey yooxana iyo yacquub oo butros la jiro oo wuxuu aaday xagga buurta si uu u tukado oo intuu isagu tukanayey ayaa waxaa isbeddelay wejigiisa iyo muuqaalkiisa oo dharkiisuna waxay noqdeen caddaan ifaya markiiba 2 nin ayaa isaga la hadlaysay oo iyagu waxay ahaayeen muuse iyo eliyaas oo ka dhex muuqday ammaanta jannada adigu waxaad buuxin doontaa ujeeddada ilaah waxaad ku dhiman doontaa yeruusaalem markay ka tegayeen ayuu butros ciise ku yidhi sayidow siday u ficneed inaan halkan joogno waxaannu samayn 3 teendho mid adiga ah intii uu butros hadlayey ayaa waxaa timid daruur oo daruurtii ayaa iyaga hadhaysay xertiina way baqeen oo cod ayaa daruurta ka dhex hadlay kaasoo lahaa kan waa wiilkayga kaan doortay maqla isaga macallin waxaan baryahayaa inaad wiilkayga eegto fadlan isaga caawi waayo waa dhallaankayga keliya waxaan ka baryahayaa xertaada inay ka saaraan laakiin way awoodi waayeen qarniyabu rumaysadka daran oo madax adagu intee ayaan idinla joogayaa oo idin dulqaadanayaa wiilkaaga halkan keen wejigiisa waa la bogsiiyey waa cajaa'ib siduu yooxana u baray xertiisa marka aad tukanaysaan dhaha
aabbaha iyaga samada ku jiro magacaagu quduus ha ahaado boqortooyadaadu ha timaaddo oo doonistaada dhulka ha lagu sameeyo siday samada ku tahay oo nasii kibis nagu filan maalin waliba oo noo cafi dembiyadeenna sidaan inaba u cafinno kuwa innaga noo qaamaysan oo jirrabaadda ha noo kaxayn laakiinse sharka naga du weyddiista oo waa laydinsiin doonaa oo waad heli doontaan garaaca oo waa laydinka furi doonaa ku kastaa oo weyddiista waa la siin doonaa oo ku kastaa oo doonaa wuu heli doonaa oo ku kastaa oo garaacana waa laga furi doonaa midkii neeba aabbe ah oo wiilkiisa siin lahaa mas haddii uu weyddiisto kalluun ama hangara leh marka uu kun weyddiisto adigoo sidaas u xun waad garanaysaan sida carruurtiin hadiyadu wanaagsan loo siiyo intee in ka badan buu aabbaheenna jannada ku jira siinayaa ruuxa quduuskaa kuwa isaga weyddiista waxaan idinku leeyahay waxba noloshiinna ha uga fakarina wixii aad cuni lahaydeen ama waxa aad gashan lahaydeen noloshuna waa ka qiimo badan tahay cuntada jidhkuna waa ka qiimo badan yahay dharka bal eega haadda wax ma beertaan oo ma goostaan oo ma lahan kayd ama bakaar weliba ilaah ayaa quudiya intee in la-eg baad ka qiimo badan tihiin shimbirahaas midkiinaba intuu walwalo wax ku dari kara cimrigiisa haddaydan samayn karin shayga sidan u yar maxaydin ugu walwalaysaan waxaa kale u fiirsada ubaxyada siday u koraan ma shaqeeyaan waxna ma tushaan weliba sulaymaan oo wata ammaantiisa uma quruxsanayn mid iyaga ka mid ah haddii ilaah dhar huwiye cawska duurka maanta kaasoo berrina lagu tuurayo dab intee in ka badan buu hubaa inuu dhar idin siiyo idinka iimaanka yaru iimaankayaga noo siyaari haddii aad leedihiin iimaan khardal eg waxaad ku odhan kartaan geedkan sukumika ah tag oo badda ku dhex tallaalan oo wuu idin addeeci doonaa jirrabaadyada dembiga waa la hubaa inay imanayaan laakiin hoog waxaa le kan ay ku imanayaan waxaa isaga u dhaami lahayd inta qoorta dhagax lagaga xidho in badda bartankeeda lagu tuuro inta uu mid ka mida kuwan yaryar dembi ku sababi lahaa sidee bay u eg tahay boqortooyada ilaah waxay u eg tahay sidan nin baa qaadaya iniin khardala oo wuxuu ku beerayaa beertiisa abuurkii baa weynaanaya oo noqonaya geed oo shimbiraha ayaa buulal ka samaysanaya laamihiisa anigu ma hubo wuxuu isagu ka hadlayo adigu maxaad wax ula cuntaa oo aad wax ula cabtaa canshuurqaadayaasha iyo dadka kale ee la deeriyey dadka ladan uma baahna dhakhtar laakiin waa kuwa jirran anigu umaanan imaanin inaan ugu yeedho kuwa sharafta le toobadda laakiin waa kuwa la nacay noo sheeg wax ku saabsan boqortooyada ma jiraan wax kale ha baqina idayahow yari waayo aabbihin wuu ku faraxsan yahay inuu siiyo boqortooyada iibiya waxaad leedihiin oo dhan oo masaakiinta siiya lacagta samaysta kiishash aan dhammaanayn oo ku kaysada jannada maal aan dhammaanayn halkaasoo aanay weligood ku nusqaamayn waayo tugu tegi kara ma lahan oo aboor baabi'in karana ma laha waayo qalbiyadiinnu waxay jiri doonaan halka maalkiinnu yaallo
naag yahay xor baad ka tahay cudurradaada fiiri iyada waa la daweeye tan waa mucjiso fiiri iyada waa la daweeye kaale arka amaana rabbiga 18 sano ilaaha ku dhowro maalinu waxaa jira 6 maalmood oo aynu shaqayno haddaba kaalay maalmahan mid ka mid ah si lagu daweeyo laakiin ma aha maalinta sabtida ah kuwiina lagu jiliyaasha ahu mid kastoo idinka mida wuu soo fur lahaa debigiisa ama dameertiisa si uu u siiyo maalin sabtiya biyo hadda waxaa halkan joogta midiina ibraahima oo shayddaan xarig ku haystay muddo 18 sana miyaanay ahayn in iyada la xoreeyo maalin sabtiya macallin wanaagsan maxaan sameeyaa anigu si aan u helo nolosha weligeed ah maxaad wanaagsanoo ii leedahay ma jirto cid wanaagsan ilaah mooye adigu waa taqaanaa waamiirta ha sinaysan cid ha dilin oo qofna been ha ku ashtakayn ixtiraam aabbaha iyo hooyada ilaa yaraantaydii anigu waan soo addeecayay dhammaan awaamiirta waxaa weli kuu haray hal shay oo lagaa rabo samaynteeda waa inaad bixisaa waxaad haysato oo masaakiinta siiso oo maal baad ku yeelanaysaa jannada haddaba kaalay oo isoo raac laakiin annagu waxaan nahay ganacsato taajir ah sidee bay ugu adag tahay in nin taajirihii soo galo boqortooyada ilaah in nin taajirihii soo galo boqortooyada jannada waxaa ka sahlan in uu maro cirbad duleelkeed ayaa dabadeed badbaadi karaa waxaan dadka u suurtoobaynin waa u suurtoobaan ilaah xaggay middan ka ahaan doontaa boqortooyada ilaah boqortooyada ilaah uma timaado habkan loo arkayo ninna ma odhan doono fiiri waa taas ama waa tan waayo boqortooyada ilaah waa idin dhex taal